Kombuyuutarku waa aalad elektaroonig ah oo u habaysan inuu qaabilo macluumaad iyo samaynta qoraallo ama xogo muhiim ah, isla markaasina u samaysan inuu ku kaydiyo meelo kala duwan. Badanaa kombuyuutarku waxa uu xogahaasi la wadaagi karaa qalab kale ama kombuyuutar kale oo yaalla meel kale, iyadoo loo marayo adeegsiga internetka. Kuwa ugu degdega badan ayaa maanta awood u leh inay bilyanno xog ah kaydiyaan kana shaqaysiiyaan sakamo yar gudahooda. Kombuyuutarada ayaa ku shaqeeya barnaamijyo loo yaqaan OS Operating System. La'aantiis kombuyuutarku waa caag ama daasad aan waxba kuugu oolayn. Barnaamijyadaasi ayaana kuu caddaynaya qaabkii aad u isticmaali lahayd. Taariikhda horumarinta kombuyuutarka oo wax ilaa iyo hadda sii socda, sidii loo kordhin lahaa xawaarihiisa ama loo yarayn lahaa qaab dhismeedkiisa amaba kor loogu qaadi lahaa muuqaalkiisa. Intaan la samayn kombuyuutarka qabanaya hawlaha, badanaa dadku waxay isticmaali jireen hab xisaabeedka loo yaqaan calculator-ka. Waxa uuna fududeeyay xisaabtii. Calculator-ka ayaa la horumarinayay maalinba maalinta ka dambaysa ilaa sanadihii afartameeyadii laga soo gaadhay, kaas oo saas u noqday in la soo saaro qalab badan oo loo adeegsado isgaadhsiinta iyo waxbarashada. Guusha laga gaadhay soo saaridda kombuyuutarka waxay bilaabatay wixii ka dambeeyay soddomeeyadii ilaa iyo afartameeyadii qarnigii 20aad ee aan soo dhaafnay, waxaana lagu soo daray astaamaha gaarka ah ee kombuyuutarka ee casriga ah, kuwaasi oo ah elektarooniga ee ku shaqeeya nidaamka dijitaalka ama nambarada, kuwaasi oo uu horumariyay badankooda Calon Shannon sanadii 1937. Noocyada kala duwan ee kombuyuutaradu u samaysan yihiin ayaa kala ah kombuyuutarka nooca loo yaqaan desktop-ka oo ah kan loogu isticmaalka badan yahay, loona isticmaalo xafiisyada, dukaamada, cisbitaalada iyo guryaha. Kombuyuutarka dhabta oo loo yaqaan laptop-ka waana kombuyuutar loogu talagalay in la qaadan karo oo ay aad u isticmaalaan dadka safarada gala, safarada dhaadheer ama kuwa gaagaabanba oo magaalooyinka dhexdooda ah. Waxaa jiray kombuyuutar hadda laga sii guurayo oo la yiraahdo kombuyuutarka calaasha ama Palm ama PDA-ga loo yaqaano. Waa kombuyuutar yar oo sahlan oo shaqo fudud qabanaya, kuwaasi oo ka sahlan qaadista kombuyuutarka culayskiisa. balse telefoonada smartiga ayaa booskaasi hadda buuxiyay oo waxa moodaaba inay suuqyada dunida hadda ka baxeen. Ugu dambeystii waxaa jira kombuyuutarada loo yaqaano kombuyuutarada super computerska, kuwaasi oo hawlo waaweyn oo qaas ah qabta, waxaana loo isticmaalaa maamulidda iyo naqshadaynta dayax-gacmeedyada iyo waxyaabaha la midka ah. waxaad nagala socotaan channelkeena La Jaanqaad Dunida. Fadlan subscribe saar, hana hilmaamin inaad halkan rukumato si aad maalin kasta u hesho macluumaadyo muhiim ah. Mahadsanid.